dallad guud oo ay ku midoobeen jaaliyadaha Soomaalida ee dalka Netherland ee IFSAN ayaa daboolka ka qaaday in ay dhowaanta bilaabeen isdiiwaangelinta barnaamijka Brain Gain oo ah barnaamij tijaabo ah iyo fursad ay qurbajooga Soomaalida ee haysta shahaadooyin iyo tacliin sare oo heer jaamacadeed ah doonayana in ay dadkooda iyo dalkooda hooyo cilmigooga iyo aqoontooda ugu deeqaan shirweynahan oo lagu qabtay Babylon Hotel oo ku yaala magaalada Hague ee dalka Netherland ayaa lagaga baraandegay sidii ay qurbajooga Soomaalidu ay dalkooda hooyo aqoontooda jaamacadeed si mutadawacnimo ah ay wax ugu qaban lahaayeen iyagoo soo joogi doona goobaha ay mashaariicda horumarka iyo dib u dhiska ka socdaan waxa mashruuca Brain Gain taageeraya xukuumadda Netherland oo soo dhaweysay aqoon-yahanada Soomaalida iyo ardayda ka qalin jabiyay jaamacadaha dalka Netherland ee doonaya in ay aqoontooda ku caawiyaan kana qayb galaan mashaariicda horumarinta ee ka socda goobaha ay asal ahaan ka soo jeedaan waxa shirweynahan ka soo qayb galay aqoon-yahano Soomaaliyeed iyo arday ka qalin jabiyay jaamacadaha dalka Netherland oo Soomaaliya doonayana in ay aqoontooda heerka jaamacadeed ah ugu faa'iideeyaan dib u dhiska dalkooda hooyo kadib warbixin dheer oo ku saabsan shuruudaha iyo waxa looga baahan yahay qofka doonaya in uu ka mid noqdo barnaamijkan Brain Gain oo ay mas'uuliyiinta dalladda IFSAN goobta ku soo bandhigeen ayaa waxa sidoo kale iyana goobta ka hadashay Lidi Nafis oo ah mas'uul ka socday wasaaradda horumarinta iyo iskaashiga caalamiga ee dalka Netherland oo sheegtay in ay si weyn u taageerayaan mashruucan oo ay sheegtay in uu qiimo weyn ugu fadhiyo Soomaalida aqoontooda ku deeqay ee jecel in ay dalkooda hooyo iyo dadkooda wax u taraan ugu dambeyntii waxaa dadweynaha madasha joogay ay fursad u heleen in ay su'aalo weydiiyaan mas'uuliyiinta dalladda IFSAN oo mid uga jawaabay su'aalahaas dadka mutacalimiinta ah ee diasporada ah wixii ay dalkoodii ay dib mataqaanay maalgelin u gelin karayaan waayo dadkan waa dadkii mutacalimiinta ahaa waa dadkii xirfadda lahaa waa lagu soo taabay waajib bay ku tahay dadkii wax bartay in iyaguna ay dalkoodii hooyo ay dib ugu celiyaan oo ay wax mataqaanayay gacan ka geystaan sidii ay dhinac walba mataqaan uga caawin lahaayeen caafimaad ha noqoto biyogelin ha noqoto dhinac kastoo adeegyada bulshada ah qolada soo qabanqaabisay IFSANna aad bay raalli uga ahayd sidii la isu weydaarsaday fikradaha brainstorm baa la sameeyey fikrado fara badan baa la isu weydaarsaday wasaaradda arrimaha dibaddana aad iyo aad bay iyaduna ay raalli uga ahayd sida diiran ee Soomaalidii waxgaradka ahayd ee mutacalimiinta ahayd xirfadaha lahayd ay uga soo qayb qaateen fikrada soo jeediyeen brainstorming la sameeyey dadkaagii dhulkaagii waddankaagii adiga ku baahan yahay adiga dhalinyar baa tahay bari hooyaa noqonaysaa caruurtaadii hadda waxa la isku xiri waxa lagu leeyahay Netherland marka joogto af Soomaali ma taqaana af Soomaaliga hataa hadaadan aqoonin see u hadlaysaa marka waa inaad af Soomaaliga taqaan Ingiriiska taqaan luqadii kale taqaan dadkaagina u faa'iideeyo adna faa'iideyso bardu waxa tahay Soomaali meel kasta aad joogtid dalkaana wayna soo dhaweeyeen waan u mahadcelinaynaa programkaana waxaan u arkaa program fiican labada dhinac buu u faa'iideynayo dadkii xagga joogana u faa'iideynayo dadkan halkan joogana u faa'iideynayaan u arkaa aniga programka waxaan leeyahay IFSAN iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Netherland intaba waa u mahadcelinaynaa programkan wuxuu ah hordhac dadka Soomaalida la hordhigayo oo la wargelinayo ururada dhan Soomaalida ama wadanka dadka dhangan inay ka qayb qaataan mashruucan ka helna wasaaradda arrimaha dibadda IOM-ta ay yiraahdeen waxaan rabnaa dadka Soomaalida diasporada inaad wargelisaan 20 qof si loo celiyo dib loogu celiyo Soomaaliya ay ka soo shaqeeyaan muddo inta u dhaxaysa bil ama 6 bilood ama sanad Soomaaliga waa adag yahay laakiin af Soomaaligana qasab ayay ku tahay ayaga hataa cilmigooda hadayna siiyaan anagana dhankaynii kale inay af Soomaaligi iyo dhaqankii iyo diintii wadanka soo bartaan waa loo baahan yahay laakiin hadaan dhahna maxaa af Soomaali ma yaqaanin ma baxayaan hada jugjug meeshaada joog waay moogta marka waxa ma hormarayna Netherland waxaan dhahnaa bay mud erkhans bixina waa in uun meel aan ka bilawnaa marka waa in hataa caruurta af Soomaaliga aqoonin la geeyaa sida af Soomaaliga u bartaan markaad dib u fiirso mataqaan 25 sano dagaalada lagu jiray hadda waxa moodaa dadkii yaryaraa inta wax ku bartay iyo kuwii iyagoo yaryar halkay wax ku bartay inay maan diyaar inay wadankooda ku noqdaan ay wax ugu faa'iideeyaan ma aha in dhibko meesha ka jiro dhan ay wada dabooli karaan wax ka qaban karaan laakiin kolley waxyaabo badan way uga faa'iideyn karaan waxaan u arkaa fursad aad u weyn kolley xitaa waxay noqon kartaa qofkii la diro
in isagana faa'iido u noqoto waddankiisina soo barto oo afkiisina si fiican u soo barto moogta marka waxay noqonaysaa win-win mataqaanaa situation labada dhinac in laga faa'iidaysto dhalinyarada runtii halkan da'da yar ku yimid hadday rabaan ku dhashay wax ku bartay waxyaabo fara badan oo waddankii ka jira iyagu nadiif ka ah jecelna ama maaragtay moralkooda aad u fiican yahay jecel inay waddankoodii hooyo inay ku laabtaan oo aqoontii halkan ku barteen ay geeyaan in dhalinyaradaas fursad la siiyo ay dalkii ku bartaan aqoontoodana xagga ay ku geeyaan oo laga faa'iidaysto runtii marka kulley waxaa jira shuruudo looga baahan yahay qofka shuruudahaasna waxaa ku qornay warqaddii hadda aan dadka u qaybinay way tahay qofka da'diisu inay 21 sano ka weyn tahay inuu aqoon uu leeyahay jaamacadeed maaragtay ha noqoto qaybihiisa kala duwan bachelor masterate ama PhD inuu leeyahay khibrad shaqo inuu maaragtay luqadda ingiriiska holandeeska oo maaragtay si fiican u yaqaan iyo inuu isagu rabo uu maaragtay motivationkiisa ama dareenkiisa inuu waddankii wax ku kordhiya ay fiican tahay kulley shuruudahaas hadda maaragtay ugu muhiimsan oo looga baahan yahay dadka jecel inay waddankii tagaan oo ay aqoontooda geeyaan